dawladii iyo dalka kale ku wada hadlaan inta saxaafada loo bandhigo garan meesi laakiin waxa weeye waa laga wada hadlay hadaan adigu ogeyn oo haweenkeena shaqaalihiisa mulkiilaha uu ogeyn la hadlo waa noogeysiin farxaan xaaji cali oo dubay jooga telefoonaan ku hadallo waan u sheegnay xaaladdu meel walba si halkii marisay ilaa maalintii maxaan ku raadayay iyo qoliyaha daarkiisa jooga waxa weeye ma waxa sheegaya waxa ka hadlaya yani waanu ka hadalnay quraayadana waan soo taagayo nin si kale hadalku wuxuu ku wanaagsan yahay in si qurux badan loo wada hadlo hadalada leedahay mooyad baan soo taagin luqadaha inaad joojisa qurux badan oo wareeyo weyn baa tahay oo gobolka jooga weyn baa tahay inaad si qurux loo hadashaa fiican mulkiilahaaga aad u shaqaysaa woogi inaad arwaan la hadal xiritaankeedana kambaniyada dawladdu way kala hadashay kuwii xiray baanu kala hadalnay Soomaad garan laakiin de contractna waa leedii oo contract baa maxaan ku raadayay hoolkeeda la gashay annaguna qaybteeda waxaanu ka hadalnay inankaas inaan wax dambiye gelin in la soo daayo wax qarsoon ma ahaynte hawshiisina waa lagu jiraa waa laga shaqeynaya marka waxa weeye nidaam walba mar hadii la galo hawsha lagu jiro waxa weeye ha ka dhigin inaan cidi gelin ama aan laga maxaan ku raadayay aan laga hawlgelin waanu ka hawlgalay waanu ka muslimiin ilaa la soo daayo dibadda la keenay si kastaba ha ahaatee shaqaaqadan labada beelood ku dhex martay deegaanka dharkay geeyo ayaa hore madaxweynaha Soomaaliya ugu saaray guddi dhexdhexaadisa colaadda labada beelood ka dhex aroosan waxaana arintani ku soo beegmaysaa xil ay xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland safar ku gaadhayeen deegaankaasi